Waa idin salaama walaalaha aan halkan ku midoobnay, waa maalin cusub, saacad cusub, fiideo cusub iyo qayb cusub. Kusoo dhawaada qaybtii saddexaad ee buugga 9 Day Routine. Hakani waa hoyga akhriska buugta. Haddii aad tahay dadka wax akhriska jecel, caqabadna ka haysato wax akhriska, haysdhibin ee halkan kala soco buug joogto ah. Haddii aad si toos ah ula socoti buugga, waxay ka dhigan tahay adiga oo akhriyay, waxaana uga xisaabtamaysaa buug aad dhamaysay. Adigu ogsoonow taas, fadlan muuqaalka like saar, channelkana subscribe gareyso si aad ula socoti buugta taxanaha. Waxayna ku bilaabanaysaa sidan qaybta saddexaad. Caadooyinka furaha. Caadooyinka furaha waa asaaska xooga badan ee caadooyinka kale lagu dhiso. Kuwani waa caadooyinka saameyntooda leh si wanaagsan u saameeya qaybaha kale ee nolosheenna. Tusaale ahaan, jimicsiga joogtada ah wuxuu u horseedi karaa wax soo saar wanaagsan, hurdo fiican iyo korodhka kalsoonida. Adiga oo aqoonsada oo kobcinaya caadooyinka dhagxaanta muhiimka ah, waxaad kordhin kartaa saameynta joogtada ah oo aad noloshaada ku abuuri karto saameyn domino ah. 4 isku duubnida caadada iyo ujeeddada. Hirgelinta isku duubnida caadooyinka waa farsamo ku lug leh isku xirka caado cusub iyo mid jira, adigoo dib ugu celinaya hab nololeedka joogtada ah. Waxaad kordhin kartaa fursadaha aad si guul leh ugu dhexgelin karto caado cusub nolol maalmeedkaaga. Intaa waxaa dheer, ujeeddada fulintu waa istaraatiijiyad ku lug leh qeexidda xaaladaha saxda ah iyo ficilada loo baahan yahay si loo sameeyo caado. Abuuritaanka qorshe cad. Waxaad kordhinaysaa suurtogalnimada inaad raacdo caadooyinka aad rabto. 5 ka gudbinta caqabadaha iyo jebinta caadooyinka xun. Dhisida caadooyinka cusub mar walba ma fududa. Jebinta kuwa xunna waxay noqon kartaa mid aad u dhib badan. Qaybtan waxaynu ku sahamin doonaa xeeladaha laga gudbi karo caqabadaha caadiga ah iyo ka xoreynta caadooyinka xunxun. Laga soo bilaabo ogaanshaha kiciyaasha iyo helitaanka beddelka caafimaadka leh ee ku celcelinta isnaxaris iyo raadinta taageerada. Waxaad heli doontaa qalab wax ku ool ah oo loo maro waddada loo maro isbeddel togan. Markaad guda gasho safarka aad ku dhisayso caadooyin cusub oo aad jebinayso kuwii hore, xasuusnow inay qaadanayso waqti iyo dulqaad. Rome laguma dhisin maalin gudaheed, mana aha mid si fiican loo farsameeyey. Naftaada u naxariiso, u dabaaldeg guulaha yaryar oo u hoggaansan nidaamka. Cutubka soo socda waxa aanu dhex geli doonaa muhiimadda ay leedahay in la abuuro qaab dhismeed iyo deganaansho howl maalmeedkaaga, annagoo hubinayna inay taageerto yoolalkaaga iyo himilooyinkaaga. U diyaargarow inaad qaabayso habshaqeedka caadiga ah ee kuu dejinaya guusha. Cutubka 5 abuuritaanka qaab dhismeed iyo deganaanshiyahaaga joogtada ah. 5 muhiimadda dhismaha iyo deganaanshaha. Adduunyada ay ka buuxaan isbeddel joogto ah iyo saadaalin la'aan, haysashada qaab dhismeed iyo xasilooni jadwalkaaga joogtada ah waa muhiim. Waxay ku siinaysaa dareenka nidaamka iyo xakamaynta, taasoo kuu oggolaanaysa inaad si fiican u maamusho wakhtigaaga, mas'uuliyadahaaga iyo yoolalkaaga. Cutubkan waxaanu sahamin doonaa faa'iidooyinka abuurista qaab dhismeedkaaga joogtada ah iyo farsamooyinka lagu kobciyo xasiloonida nolol maalmeedkaaga. 2 dejinta yoolal cad iyo mudnaanta. Jadwal habaysan wuxuu ka bilaabmaa dejinta yoolal cad iyo aqoonsiga mudnaantaada. Adigoo og waxa aad rabto inaad gaadho iyo waxa adiga kuugu muhiimsan, waxaad u habayn kartaa nidaamkaaga si waafaqsan wakhti si aad u qeexdo yoolalkaaga mustaqbalka dhow iyo kuwa fog, una kala qaad tillaabooyin la fulin karo. Aqoonso mudnaantaada sare oo hubi in jadwalkaaga caadiga ahi ka turjumayo iyaga. Caddayntani waxay hagi doontaa ficiladaada maalinlaha ah iyo go'aanada. Waxay kugu ilaalin doontaa waddada guusha. 3 joojinta wakhtiga iyo kala hormarinta shaqada.
Waqti joojintu waa farsamo awood leh oo ku lug leh in waqti cayiman loo qoondeeyo howlo ama howlo kala duwan. Adigoo maalintaada horay u sii qorsheeya oo u hura waqtiga diirada lagu saarayo howlaha muhiimka ah, waxa aad sare u qaadi kartaa wax soo saarkaaga kana fogaan kartaa debinka howlo badan oo joogto ah. Intaa waxaa dheer, kala mudnaansiinta hawsha waxay kaa caawinaysaa inaad go'aamiso howlaha ugu muhiimsan oo u baahan in marka hore la dhammeeyo. Markaad diiradda saarto howlaha mudnaanta sare leh, waxaad si hufan u samayn kartaa horumar xagga yoolalkaaga. afar abuuritaanka jadwalka toddobaadlaha iyo bilaha ah. Iyadoo howlaha maalinlaha ahi ay lama huraan yihiin, isku darka habsocodka toddobaadlaha iyo bilaha waxay ku kordhinaysaa lakab dheeraad ah oo qaab dhismeedka iyo xasiloonida. Jadwalka toddobaadlaha wuxuu ku oggolaanayaa inaad abuurto howlo soo noqnoqda sida fadhi, qorshayn toddobaadle ah ama maalin loo qoondeeyey daryeelid. Sidoo kale, howl maalmeedka bilaha ahi waxa ay awood kuu siinaysaa in aad dib u eegis ku samayso horumarkaaga, dejiso yoolal cusub oo aad wax ka beddel ku samayso howl maalmeedkaaga hadba sida loogu baahdo. Markaad ku dhaqangeliso wakhtiyadan waaweyn ee jadwalkaaga caadiga ah, waxaad ilaalin kartaa joogtaynta oo aad ku sii socon kartaa jidkaaga aragtida fog. Qabashada dabacsanaanta iyo la qabsiga. Inkasta oo qaab dhismeedka iyo xasiloonida ay muhiim yihiin, waxaa kale oo muhiim ah in aad la qabsato dabacsanaanta iyo la qabsiga howlahaaga caadiga ah. Noloshu waxaa ka buuxa qalooc iyo leexleexyo lama filaan ah, iyo in aad awood u yeelatid in aad habayn karto habsocodkaaga marka loo baahdo. Waa furaha u oggolow meel iskadis ah oo u fur inaad la qabsato jadwalkaaga hadba sida loogu baahdo. Xasuusnow, nidaamyadu waa inay u adeegaan hage ee maaha sida sharciyo adag. Soo hel dheelitirnaanta u dhexeeya qaab dhismeedka iyo dabacsanaanta. U oggolow jadwalkaaga joogtada ah inuu taageero yoolalkaaga, adigoo sidoo kale dejinaya isbeddelada lama huraanka ah ee nolosha. Adiga oo abuuraya qaab dhismeed iyo xasilooni ku meel gaar ah, waxaad isu diyaarinaysaa inaad guul gaadho. Hadafyo cad, farsamooyin maarayn wakhti wax ku ool ah, iyo kartida la qabsiga, waxaad si sahlan ugu dhex socon kartaa caqabadaha nolosha. Cutubka soo socda waxaanu sahamin doonaa fikradda waxqabadka ugu sarreeya iyo sida aad uga faa'iidaysan karto awoodda joogtada ah si aad u gaadho natiijooyin aan caadi ahayn. U diyaar garow inaad furto kartidaada buuxda oo aad gaadho heerar cusub oo guulo. Cutubka 6. Siidaynta waxqabadka ugu sarreeya iyada oo loo marayo caadi ahaan. Fahamka waxqabadka ugu sarreeya. Waxqabadka ugu sarreeya waa gobolka ay shakhsiyaadku ku shaqeeyaan heerkooda ugu sarreeya ee wax soo saarkooda, abuurkooda iyo waxtarkooda. Waa xaalad qulqulaya oo aad moodo in wakhtigu meesha ka baxayo, shakhsiyaadkuna ay si buuxda ugu milmeen howlahooda. Cutubkan waxaanu sahamin doonaa fikradda waxqabadka ugu sarreeya iyo sida hab shaqeedka si wanaagsan loo qaabeeyey uu kaa caawin karo inaad furto kartidaada buuxda. Doorka joogtada ah ee waxqabadka ugu sarreeya. Jadwalka joogtada ahi waxa uu door muhiim ah ka ciyaaraa gaaritaanka waxqabadka ugu sarreeya. Adiga oo ku dara caadooyinka iyo dhaqamada joogtada ah ee jadwalkaaga, waxaad abuuri kartaa jawi taageera oo kor u qaada awooddaada inaad u qabato sida ugu fiican. Nidaamyadani waxay bixiyaan qaab dhismeed, waxay yareeyaan daalka go'aanka, waxayna wanaajiyaan fayoobidaada maskaxeed iyo jireed, taasoo awood kuu siinaysa inaad si fudud u gasho xaalad socodka. Kobcinta maskaxda iyo joogitaanka
maskaxda iyo joogitaanka ayaa ah qaybaha muhiimka ah ee waxqabadka ugu sarreeya. Marka aad si buuxda u joogto wakhtigan, waxa aad geli kartaa dareenkaaga, hal-abuurkaaga iyo diiraddaada, adiga oo ku daraya dhaqamada miyir-qabka ee jadwalkaaga caadiga ah, sida fekerka, jimicsiga, neefsashada qoto dheer ama dhaqdhaqaaqa miyir-qabka. waxaad u tababari kartaa maskaxdaada inay ku sii jirto wakhtigan xaadirka ah, kor u qaadida awooddaada inaad qabato heerka ugu sarreeya.